marka guudka loo dabo timaha gadafta loo xiro tirsanaan ugaanqaad gayaankoodu soo baxo ee geedka loo tago wada hadasho guurtidu gacanqaadku uu dhaco laga keeno dunyada gelbiskii ciyaaraha la gingimo aroos waa gaari nolol wacan lagu soo gardaarsiye gobsana hablayow jaamacadda adna aadan university waa jaamacadda ku tababartay jaamacadaha inuu ardaygu diyaar ahaado doqon iyo nin liitaa duruuftuun ku ooyee hal adaygu waa dow waa dabarku saacida waa doobta raganimo waa deeq ilaahay dadka uu barsiiyee haddagaali waayaha jaamacadda adna aadan ayaa waxa ay habeennimadii xalay ahayd magaalada Hargeysa ku qabatay munaasabad ay ku sagootinayso ardayda sanadkani ka qalin jabinaysa kulliyadda nursingka sidoo kalena ay ku soo dhaweynayso ardayda sanadkani u soo gudbay sanadka afraad ee kulliyadaasi munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka kala socday jaamacadda adna aadan ururka nursingka iyo umulusooyinka ee Somaliland jaamacadda French Fanon komishanka mihnadlayaasha caafimaadka mas'uuliyiin kale iyo sidoo kale ardayda munaasabadani loo qabtay waxaana halkaasi hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah ardayda munaasabadani loo qabtay iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadani waxaana ay dhammaantoodba hambalyo iyo sagootin u direen ardayda sanadani ka qalin jabinaysa kulliyadda nursingka ee jaamacadda adna aadan ee magaalada Hargeysa iyagoona soo dhaweeyay ardayda kale iyagu u gudbaya sanadda afraad ee kulliyadaasi xafladan maanta waxay ugu qabsoomaysaa waxa weeye soo dhaweyn ardayda iyo juniorka ah iyo 2 iyo 3 ga sidoo kale waa sagootin ardayda iyo 4 ka loo sameeyo dardaaran yar ardayda iyo 4 ka siinaya waxaan leeyahay ma sha Allah milestone-kii idinka baahna waa soo gaadhay haddii ilaahay ilaah waxaan rajaynaynaa many more intaa in ka sii badan ka arday ahaan caawa farxad weyn bay noo tahay farxadda waxaa noo suurtageliyey marka koowaad ilaahay ka sokow diinka kulliyadayada ayaa mahadda labaad leh oo xafladan ku dadaashay say noogu qabsoomi lahayd soo kale waxaan soo dhaweynayaa ardayda booska imikaana lagu ka sii guurayno ku soo guuri doono iyaguna iyo soo kale annaga oo noqonay senior sanadkan nolosha sideedaba waa jaranjarada mid baa ka baxaya kaa ugu guuray baad la gelaysaa haddii aad u samirto kolley caawa waxaanu isugu nimi xafladan in ardayda aanu ku sagootino tegaysa oo aanu ka mid nahay maadaama 4 sano aanu u soo dhabar adeegaynay waxbarasho kala duwan iyo sidoo kale attachment kala duwan oo hospital lahayd imtixaan lahayd waan aaminsanahay inaad tihiin dad aqoon leh akhlaaq leh oo si walba u dhisan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala kulley waa lagu kala horeeyaa uun annaguna waanu kaga sii yar horreynay wax aqoon oonu ina dheernahay oo badan ma jirto laakiin waynu ku kala horreynay maadaama aanu meeshan kaga horreynay waan idinku soo dhawaynaynaa waxaan aaminsanahay in ardaydaasi ay noqon doonaan kuwa si wanaagsan in la shaqeeya horta ardayda qalin jabinaysa waxaan ku sagootinaynaa farxad iyo hambalyo waxaan dardaarayaa in ardaydu ay ilaaliyaan itigiska ama habdhaqanka inay ilaaliyaan naxariistu kama soo hadho bukaanka waan ogahay inaan idinku soo tabacnay waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan ardayda caawa qalin bedelanaysa iyo waalidiintii ku soo tacabtay so congratulations ilaahay idinku anfaco cilmigaad barateen midaad dadka iyo dalka iyo diintaba aad ku anfacdaan allah ka yeelo waxaan ku farayaa qofka idii imanaya waa qofkii ugu liitay ama qof xanuun haya waa qofka ugu liitay bulshada dhexdeeda waana qof naftaada ama adiga naftiisii ku soo doorbiday inaad adigu naftiisii kaantaroosho xanuunka hayana aad ka jarto kow qofka inaa u muujisaan naxariis qofka ina loo muujiyo naxariis isla markaana la siiyo dardaaran qurux badan oo ku habboon oo nabdigiisa anoo ka socda ururka nursingka iyo umulusooyinka Somaliland waxaan halkan hambalyo ballaaran ugu dirayaa dhammaan ardayda caawa xafladan quruxda badan leh loo agaasimay waxaan leenahay hambalyo waxaad gaadheen mid ka mid ah milestones-kii aad rajaynayseen horta markii hore hambalyo ardaydii mee
الله شغلنا وحنا جنبكم في عنا وشغلين إنسان وحنا كل يوم أنا وهالشيء بنبريا نيرسينج أهان ونوش هذا ويان أخلاق هذا ويان وشقة هذا ويان مركا أنت حسوستا دتك أو شقين إنسان حسوستا إني والد كيني هنا وكله أنا واحد كنت داري لها ونقدم بين قفكي دباشة سفي عن صوبرتي بدوين بايدي كفر رئيسة بدأ ميلا بدو كي دونا قفكي كلنا هيرو دبا ورد دونا أديريد بكرة در هذا الميل جي قفك نفسي وحنا نقوم كرا حرفة عافماد ولا ما يستلم نقوم كرا كنتي وحنا نقوم كرا قف دراسة سمين كرا مسؤول نقوم كرا كنتي دور مهم بعد وجرتها قفك برتاح حرفة عافماد وسكتك عافماد كرونتي كوميشن هان أنا مركز أرضي سنة كلام وقل جميل oo goobaha tacliinta sare ay ka baxayaan aad iyo aad waan ugu faraxnaa maadaama ay soo galayaan suuqii bulshadiina u adeegayaan kuliyaddana way ka sii xajirtaa oo iyaga iyo caafimaadka guud waa adeegayaasha bulshada kuwa ugu dhow ee bulshada inta badan la kulmaan dad badan oo waxa jira guryaha jiifa oo u baahan cid daryeesha oo aqoontii daryeelka iyo aqoontii neersinka u baahan waxaad samaysan kartaan applicationno laydinka dalban karo oo aad ku samayn kartaan xanaanaynta iyo daryeelidda dadka bukaanka ah runtii wax badan baad abuuri kartaan 100 arday oo jaamacadda kulliyadda neersinka ka baxay farxad bay noo tahay ilaahay baa mahadleh waxaan rajaynaynaa 100ka qofi sidii kuwii ka horeeyay inay Soomaaliya bedelaan ay wax fiican ku daraan farxadda maanta aad dugsi sagootinay waa mid la qaybsanay waxa kaloo la qaybsanaynaa qolada kale iyaguna sanadka afraad soo gelaya Syria-ka tacab badan baa la geliyay waxa kaloo iyadana qiimeynaya inta Nursing Association-ka ubax baan iyadana sharfaya macallimiintiina sharfaya cid dad badan bay ku soo tabcay guud ahaan waxay ku soo tacabtay jaamacadda ay ku soo tacabtay soocayaga ma anigu idin sagootiimaaye anigu ku hadlaya afka commissionka mihnadaha caafimaadka waxaan leeyahay welcome soo dhowaada mihnadayaasha caafimaadka ayaa maanta ku soo biiraysaan waa idin soo dhowaynaynaa idin soo dhoweyn mayno quree waa idin gardaadinaynaa waa idin gacan qabanaynaa waa idin hagaynaa waa idin kor joogtaynaynaa